aynu ka horeyna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda guud ee wadanka. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda bini'aadantinimo ee ka jirta gobolada qaar ee Soomaaliya iyo sida dawladdu ay uga falcelinayso. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisu waxay isla qaadaan dhigeen fatahaadaha uu sameynayo xilligan wabiyada Shabeelle iyo Juba iyo sidoo kale daadadka roobabku ay dhigayaan khasaaraha ka dhashay sida magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee dowlad goboleedka Puntland. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ku wargeliyay inuu qaado tillaabooyin muhiim u ah dawladnimada Soomaaliya oo lagu garab istaagayo dadka Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadaha iyo sidoo kale daadadka ay soo rogayaan roobabka ka dhacaya gudaha Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in looga baahan yahay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre inay la timaado qorshe cad oo ku wajahan musiibooyinka dabiiciga ee inta badan ku soo laalaabanaya gudaha wadanka iyo sida loo wajahayo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa isla la foguray sida looga gaashaaman karo musiibooyinka iyo fatahaadaha inta badan ka dhacaya Soomaaliya oo ay sababaan wabiyada oo xilli roobaadyada soo fataa iyo roobabka ku dhifta meelaha gootimaha sida magaalooyinka dhaca deegaanada Puntland iyo qaybo kamid ah dhulka Soomaaliyeed oo inta badan xilli roobaadyada biyo ay ku soo rogmadaan kadibna dadka waxyeello ay ka soo gaarto. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in fatahaadii ka dhacday magaalada Jowhar madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in fatahaadii ka dhacday magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan aysan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dadka ka shaqeeya arrimaha gargaarka wali aysan cashir ka baran taasoo muujinaysa inuusan jirin diyaar garow weyn oo ku aadan arrimaha musiibooyinka oo inta badan xilli roobaadyada ka dhaca gudaha Soomaaliya. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa u bandhigay madaxweynaha qorshaha ay wado xukuumaddu ee ku aadan sidii loo garab istaagi lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan meelaha ay dhibaatooyinku ka dhaceen ee ku aadan fatahaadaha wabiyada Juba iyo Shabeelle iyo sidoo kale daadadkii ku soo rogmaday magaalada Qardho waxyeello badan ay iska soo gaartay dadkii ku noolaa magaaladaasi. ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa madaxweynaha u bandhigay in ay dadkii ku sugnaa magaalada Qardho ay dawladdu gaarsiisay gargaarkii ugu horeeyay isla markaasna ay akoonka ku shubtay 1 milyan oo loogu talagalay dadkaas in wax loogu qabto isagoo sidoo kale ra'iisul wasaaruhu sheegay inay wadaan qorshe ay gargaar ku gaarsiinayaan dadka ku sugan magaalada Baardheer oo ku soo fatahay wabigu isla markaasna waxyeello xooggan ay ka gaartay. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa rajo weyn ka muujiyay sida ay guddiga ka hortagga musiibooyinku ay u wadaan dadaalo kala duwan oo ay ku doonayaan inay gargaar ku gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaatooyinku gaareen. madaxda dawladda Soomaaliya ayaa iska xog wareysay sida loola tacaali karo xaaladda wadanka oo iskugu jirta ka hortagga cudurka COVID-19 iyo xakameyntiisa iyo ka jawaabitaanka arrimaha bini'aadantinimo ee ka jira gudaha wadanka waxayna isla qaadaan dhigan inay muhiim tahay in la sameeyo ka hortag buuxa ka hor inta aysan musiibooyinku aysan dhicin. cudurka coronavirus ayaa labada mas'uul iska xog wareystay waxayna sheegeen inay lagama maarmaan tahay in tillaabooyinka dawladda Soomaaliya la sii xoojiyo iyadoo hoos loo dhigayo isku imaatinka iyo kulamada si loo yareeyo cudurkaas in gudaha Soomaaliya faafitaankiisu uu ku noqdo mid si weyn ugu faafaya maadaama iminka dadka cudurkaas laga helay kor u sii dhaafayaan ilaa iyo 600 oo qofood. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay shacabka Soomaaliyeed ay dhaxda u xirtaan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha coronavirus-ka iyo gargaaritaanka shacabka Soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadaha iyo daadadka wadanka